barasaabka gobolka Sanaag ayaa waxa lagu wareejiyay maxaabiis ka kooban 18 nin kuwaasi oo lagu kala qabsaday dagaal ka dhacay deegaanka Waqdariya ee xeebta gobolka Sanaag waxaana munaasabadii barasaabka iyo mas'uuliyiinta gudida nabadgelyada Sanaag ah oo weheliyay lagu wareejinayay maxaabiistan oo ka qabsoontay magaalo xeebeed Allaasa Surud oo ugu horeyn hadalka isaga dambeeyay Chief Caaqil Aadan Jaamac Faarax wakiil Chief Caaqil Yaasiin Xuseen Xasan Chief Caaqil Caynaasha Caynab Cali waayeel iyo waxgarad kale iyo waliba boqor Maxamed Nuux Aadan waxaana hadaladoodii kamid ahaa aniga oo ah odaygii Chief Caaqilkii ergada hogaaminayay halka galabta waxaan ku wareejinaynaa 17 nin oo maxbuus oo lagu qabtay goobta Waqdariya waxaan galabta halka ka cadeynayaa inaanu 17 nin gudida nabadgelyada ee gobolka heer degmo iyo heer gobolba inay ku dhantahay aanu ku wareejinayno ninkii dhaawac ahaana xalay baa laga howlgalay maamulkaanu ku wareejinay maamulkuna caafimaad bay u direen halkan waxaan ku wareejinaynaa maanta maxaabiistii lagu qabtay dagaalka Waqdariya oo ah 17 maxbuus iyo ninaan xalay wareejinay oo dhaawac ahaa oo maamulku nagala wareegay haddii waxaan ku wareejinaynaa 17 ka maxbuus ee halka taagan waxaan idin leenahay gacmo fulan nagala wareega maanta oo ilaahay halka inagu kulmiyay waxaanu maamulka gobolka Sanaag iyo gudida nabadgelyada ku wareejinaynaa 17 maxbuus ayaanu ku wareejinaynaa halka midna xalay buu ku wareegay tirada guud ee maxaabiista gashay gacanta gudida nabadgelyada oo hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Sanaag tiradoodu waa 18 naga gudoomiye uqaasha dhamaysay sida waa waxa rugtay ku sheega weeye hadan 18 xalay mid la diray arin caafimaad loo dadajiyay iyo 17 hadan aan ku wareejinay gudida nabadgelyada ee gobolka oo hogaamiyo barasaabku taliyaha qaybta taliyaha badda saraakiil badan sida ayaa naga gudoomaysan insha Allah iyagoo caafimaad waxaan u mahadnaqayaa ciidanka dhaawacii dhexdooda yiilay dhiigoodii u shubay ee ku badbaadiyay waan u mahadnaqayaa intaa waxaan raacinayaa adduunyadu waa shalay iyo maanta iyo biri shalayna nabad baanu doonaynay maantana nabad baanu doonaynaa birina waxaanu yeeynaa nabad cid kastana nabadgeliyo iyo heshiis baan ugu baaqaynaa ciddii wax kale ka doonta waa iyada iyo waageeda annagu waxaanu nahay beesha Allaasa Surud oo ciidankana ku soo dhaweeyay maxaabiistana loogu keenay si habsama baanu u qabanay ciidanka iyo maamuladuna si habsama bay u soo qabteen gacanta lagu dhigay si nidaam leh oo sharaf leh oo dadnimo leh baa loo soo dhaweeyay oo loo qabtay oo wax loogu qabtay intaana waxa maanta lagu wareejiyay gudida nabadgelyada maanta aan halkan ku soo sagooteena maxaabiistii dagaalka lagu qabtay Waqdariya maxaabiistaas waa 17 oo nabad qabaan waa dad walaalahay ah waan soo badbaadinay ilaah baa badbaadinay dawladdan ku wareejinay dadkii meesha isugu hadhayna waxaan doonaynaa inay nabad ku shaqeeyaan oo nabad isugu yimaadaan oo walaalo noqdaan oo dhibta la iska dhaafo hadba intii la isxagan lahaa maalin walba war walaalayaal aan nabad qaadano anigu waxaan ahaa waayeelkii loo dheebay maxaabiista wax ceebaanu kala sheeganaynaa ma jirto waajibaadkoodiina waa marnay dagaalkii halka ka dhacay Waqdariya maxaabiistii lagu soo qabqabtay ayaanu halkan maanta gudoomiyaha iyo wafdiga aad hogaaminayso ciidamadana sida warbixinta dawladda ku sii wad maqlayseen rag iga horeeyay waxay qireen inay yihiin ciidan Puntland wax waa dhaceen waana dhici doonaan maantana waxaanu joognaa goob wax laga qaban karo meel wax laga qaban karo haddii diyaar loo yahay oo nabad diyaar loo yahay oo cid nala qaadata haystaan waxaanu la joogaa meel wax laga qaban karo waxaanu u diyaarnahay wada hadal nabadda diyaar baanu nahay maga waxaan idinkan ummadda islaamka oo maga luganahay inaanu nabad diyaarno maqashiinayna wixii dhintay dadka ehelka halka ku kala dhintay waa tacsiyadeynayna samir iyo iimaan baan ilaahay naga wada siiyo
kuwa naga dhaawacman Allah shaafiyo gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay oo maxaabiistan si buuxda ula wareegay maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Sanaag gaashaale dhexe Salebaan Ducaale Ubaxle iyo gudoomiyaha gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan raggii hogaaminayay hawshan ee raggaas seefgareeyay ee gacanta noo soo geliyay mahad ballaaran baan idin jeedinayaa aniga qof ahaan Ismaaciilaanna waa ii guul waa labadii gacmood waa abtiyaday waa wayaashay waa ii heeliseen Allah idin heeliyaan leh waxaan u hambalyeynaa odayaashii dhaqanka ee reer laasa surad salaadiinta cuqaasha iyo waxgaradka isku soo gaadhay iyo ciidamadii goobtii dagaalku ka dhacay badbaadiyey 18 qof ee waliba wada ragga ah oo goobta dagaalka lagu qabtay dhammaan ku badbaadiyey inaanay gacan kala gelin si yaroo kalena xaaladda dagaalkuna aanay geeridooda sabab noqon aad iyo aad baan qola ugu hambalyeynaa odayaasha hawsha ku guuleystay waana maxaabiistii dagaalkii ka dhacay waqdariyada hawsha dagaalkii ka dhacay waxaana gudoomiyaha gobolka kala wareegay 17 maxbuus iyo hal maxbuus oo xalay aanu u dirnay isagoo dhaawaca magaalada Ceergaabo waxaan leenahay nabadgelyada hal ilaaliyo waxa kale halkan idinkaga gudoonay 17ka maxaan ku dhahday ninkii xalay ee dhaawaca aanu dhakhtarka u diray iyadana sida sharafta leh ee qiimaha leh maxaan ku dhahay beesha u soo wareejisay ee ay gacanta dawladda ugu wareejisay ee ay ku aamini weyday maxaan ku dhahay cid kale u gacan galiyaana waa idinka mahad celinaynaa kolley mas'uuliyaddu waxay ku soo wareegtay xagayagii aniguna waxaan ku wareejinayaa taliyaha qaybta si uu amnigooga u sugo wixii hadda ka dambeeya waxaan ku baaqayaa nabad labada beelood waxaan ugu baaqayaa nabad inay ku wada noolaadaan colaadi waxba ma keenayso wada halad iyo walaalnimo ayaa wax keenaya deegaankaasi weligiiba halkaas u ahaanayaa dadkunbaa maxaan ku dhahdaa da'du dhammaynaysaa oo isku reebaya deegaanku marnaba guuri maayo waxaan leenahay war ilaahay ha laga cabsado nabadgelyaha lagu wada noolaado dhibi intaa inoogu filan ee maxaan ku dhahdaa qolo walba xabad joojin dhinaceega ha ka samayso سعيد موسى فارح تلفزيون كبد عس TV مقالة Ceergaabo